anigoo Colonel Cusmaan Dubad waxaan ku wareejinaynaa maamulka gobolka Hiiraan qalabkani ama agabkani beereed oo uu soo hadiyadeeyay madaxweyne Ismaaciil Umar Geelle shacabka gobolka Hiiraan sidaad la socotaan qalabkani waa qaybtii ugu horeysay waana 5 motor iyo qalabkani oo yadna tii daawada qalabkii ma garanaysaanay qalabkan kale to iyaguna qalabkii lagu beereeyay ama lagu qodayay dhulka ama greenka lagu baahinayay abuurka lagu beereeyay iyo labada cagaf marka runtii waa qalab wax ka tari doona wax soo saarka gobolka Hiiraan sida aan filayno waxaan lagu wareejin doonaa iskaashatadii hore u jiri jirtay iyo si ay dib ugu hawlgalaan iskaashatadaasi beerihii markii horeba ay lahaayeen taasi waxay ka dhabaynaysaa runtii in ciidanka Djibouti hiil walaal aynan ahayn ciidan dadaalkoodu yahay kaliya inay xoreeyaan dhulka oo yaani ay qorisidaan laakiinse waxa weeye waxa kaleeta ay yihiin inay ama missionkoodu ama muhiimadoodu kamida arrimahan oo kaleeta iyo samafalka iyo waxa weeyaan wixii kaleeta ee lamida marka insha Allah taala waxaan sii wadi doonaa dadaalka yagaas insha Allah qalabkana waxaan si toos ah ugu wareejinay maamulka gobolka Hiiraan oo runtii madax ka yahay gudoomiye عبد الفتاح ماتسن الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد maartay shaga xorriyada Djibouti lagu soo aadiyay madaxweyne Ismaaciil Umar Geelle madaxweynaha Djibouti iyo walaalaha Djibouti ay ugu talagaleen walaalada Soomaaliyeed gaar ahaan gobolkan Hiiraan anigu beeraley aadan u garanaya qalabkan maartay cagafyada iyo kaas ugu xageeyo oo jibalatorka la dhahaa oo maartay shaga kanaalada sameeya iyo kii beerta falaayay oo makiinadii yaambadii la yiraahdo ilaa loo keeno kuwa burburiyo ciida waaweynka iyo tii abuurka firdhinaysay tan waxa waaye ishaagtil sameeyay daawada maarta cayaan ka dilaysay kuwana waa matooradii oo wata ishaag bamkoodii biyaha soo saarayay wata runtii waxaan u maleynayaa qalabkan waa qalab faa'iido weyn u keeni kara gobolka Hiiraan wax soo saar weyn u keeni kara ilaa dawladda ay burburtay wax qalab noocaana keena ma jirin Soomaaliya ona keena beeraleyda Soomaaliya waan ka gudoonay madaxweynaha Djibouti iyo shacabka Djibouti weynina soo gaarsiiyeen ciidamadii Djibouti halkan joogay hawlgalka amisom ee Soomaaliya ka socda ka qayb qaadanaya runtii waa wax farxad leh waan uga mahad celinaynaa runtiina shacabka Soomaaliyeed way ka faa'iideysanayaan wixii loogu talagalay waa laga qabanayaa ilaahayna ayagana khayr ay xasanaad iyo ajar weyn ha ka siiyo kaalmadaasi Djibouti wiligood baan gudoomi jirnay insha Allah waxaan ku baranay Djibouti walaalaheen waxay ka dhabeeyeen magacyadii saxda ahaa ay wateen runtii waxaana leeyahay maalintaasi maartay xorriyada Djibouti hambalyo ayaan leeyahay shacabka Djibouti madaxweynaha Djibouti iyo ciidankaba intaba waan hambalyeynaya wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh